السلام عليكم كسو دواada daawadayaal qisadan ku cibro qaadashada mudan oo dhacday xilligii dawladii Cusmaaniyiinta waxayna ku bilaabanaysaa sida tan suldaan kamid ah salaadiintii Cusmaaniyiinta oo lagu magacaabi jiray Suleymaan al-Qaanuuni ayaa hurdada ka soo toosay isagoo aad uga naxsan riyo uu ku riyooday wuxuuna u yeeray mid kamid ah ilaaladiisa oo u dhawaa wuxuuna ku yiri noo diyaari fardaha maanta waxaan u ambabaxeynaa si aan u soo ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin dadka kadib markii ay soo baxeen waxa ay soo mareen wado u dhex yaalo nin meed ah dadkana aysan u dhawaanaynin sultaankii ayaa weydiiyay qaar ka mid ah dadka waa maxay meedkan waxay ku yiraahdeen meedkan waa nin zaani ah oo qamradana cabi jiray mana lahan awlaad iyo ehel toona ilaa haweeneydii uu qabay mooyee sidaas darteed dadka oo dhan waa ay diideen inay aasaan suldaankii ayaa aad ugu xanaaqay wuxuuna ku yiri miyuusan ka mid ahayn ummadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadib suldaankii ayaa qaaday meedkii wuxuuna u geeyay haweeneydii uu ka tagay kadib markii ay haweeneydii aragtay meedka ninkeedii la wado way oosay oohin aad u daran suldaankii ayaa la yaabay oohinteedii wuxuuna ku yiri maxaad loonaysaa ninkaagu waxa uu ahaa nin zaani ah oo qamradana cabi jiray haweeneydii ayaa ku tiri suldaankii ninkeygii waxa uu ahaa nin caabid ah oo Allah subhanahu wa ta'ala mar walba barya mana uusan dhalin wax caruur ah jacayl uu qabo awlaad darteed waxa uu mar walba soo iibsan jiray khamrada kadib waxa uu ku daadin jiray musqusha wuxuuna oran jiray Allah ayaa mahad iska leh waxaan dhalinyaro badan oo muslimiin ah ka yareeyay dambiga ay ku dhici lahaayeen wuxuuna aadi jiray meelaha lagu tunto wuxuuna la hadli jiray gabdhaha jirkooda meesha ku gata wuxuuna siin jiray lacag ay ku maareeyaan noloshooda wuxuuna shardi ugu dhigi jiray inay guryahooda ku laabtaan ayna soo aadin meeshan mar dambe kadib markii uu guriga yimaado hadana wuxuu dhihi jiray Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh allihii ka celiyay gabdhahan xumaanta ay sameyn lahaayeen aniguna waxaan ku dhihi jiray dadku waxay arkaan camalada muuqda uu sameynayo qofka balse haddii aad dhimatid ma heli doontid cid ku kafanta oo ku dugta salaad janaasana kugu tukata kadib markii uu maqlo hadalkeyga ayuu dhoola cadeyn jiray oo oran jiray haddii aan waayo wax igu tukada insha Allah waxa igu tukan doona suldaan Suleymaan al-Qaanuuni wasiiradiisa ciidamadiisa iyo dhammaan muslimiinta kadib suldaankii ayaa ooyay wuxuuna ku yiri haweeneydii والله أنيقو سلطان سليمان أيا دقي دونا وحانا كتوكان دونا دمان مسلمين تودان كدير سلطانكي أيا أمر عيدمديسا يا مسلمين تودان إنay soo xaadiraan salaada janaazo kadib waxa lagu aasay qabri u dhow qabriyadii ay ku asnaayeen salaadiintii Cusmaaniyiinta dabadeed waxa salaada janaazo isugu yimid dhammaan muslimiinta oo dhan waxayna sidaas ku noqotay salaad janaazo tii abid ugu dadka badneed haddaba waxaan idinkula dardaarmayaa inaydan ku xukumin qofka muuqaalkiisa kore idinkoo aan ogeyn camalada u qorsoon sidoo kale waxaad sameysaan camal wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala oo idinka dhaxeeyo oo uusan ogeyn qof kale ilaa Allah mooyee waad ku maadsantahay daawadashada muuqaalkan fadlan hadduu muuqaalkan ku cajib galiyay like saar lana wadaag asxaabtaada channelka dacwad tube haddaad ku cusub tahay rukumo oo subscribe